horta intaan siyaasad ka hadlayay ama aan siyaasad falanqaynayay ama aan fadhi ku dirirayay ama aan wax indhaynayay maanta maalin aan ka calool xumahay ima soo marin markaan siyaasadii geeska Afrika ama Soomaalida aan fiiriyo wallahi maanta maalin aan ka calool xumahay ima soo marin sababtuna waxa weeye reer Somaliland waa go'een cidii ku farxi lahayd iyo cidii ka nixi lahayd waa go'een awooye tage dadka marka ka soo horjeeday inay Somaliland go'do Soomaali ka go'do laba isugu jiraan dad ay xaasidnimo ka tahay oo xaasidnimo qalbiga ku jirto oo aan horumarkoodaas iyo dowladnimadoodaas iyo horumar inay gaaraan ka xunaa iyo dad jecel ay ka ahayd dad dareemayay lixdooda lixaad inay kala dhantaalmayaan dad dareemayay يعني gacantoodii midina ka go'day dad aan qoori karin in waxa kan la yiraahdo Berberiya Boorame iyo waxa kan la yiraahdo Hargeysa iyo Burco ay noqoto ay laba dal kala noqdaan oo bari ka maalin dad dabcan inuu booqdo fiisa la weydiinayo yani dadna la xijeclo ay leeyihiin dadkaygan iyo dalkaygan igama go'i karaan dareemay iyo dad ay ka ay xaasinimo iyo cadiifad dadka labadaas isugu jiraan anigu marka fadhi ku dirarka laga tago iyo kaftanka Soomaalida baraha bulshada marka laga tago iyo in wax la isku luulaysto marka laga tago anoo la xijalo iga tahay dadkaas ma qoori karo ilaahay baa ilaa dadkaas niman yahow ma qoori karo laakiin maanta waa iga soo go'day maanta sababtoo ah waxaan dareemay wax ku daayay qalbiyan bay ku daayeen awoodda ugu badan waxa la yeelan taqaana anigu siyaasadda dadka markaa siyaasiyiinta oo xasaanada leh sida hadda madaxweyne Ciro kaleeto madaxweyne Xasan oo kaleeto dadkaas wax walba waa ka suuragal dadka siyaasadda haya ee markaas shaqeynaya oo siyaasiyiinta ah wax walba waa ka suuragal laakiin dadka shacabka ah marka fiirisid waxa ay aaminsan yihiin iyo qulubtooda marka fiirisid waxa ugu badan oo aniga hadda ii cadeynaya dadkan inay tageen meel ma aadinoo dhulkayna la degan geeska Afrika la degan muslimiin laakiin inay dowladnimo inay nala wadaagaan inay ku daysay waa dadka shacabka xininyuhu baa la yiri kuwa kugu jira ma ahan laakiin waa kuwa ku garab taagan waxay tahay u sababay guulaha ugu waaweyn ee ku gaareen siyaasiyiinta Somaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo inta la halmaasho macnaha shaqaalaha dawladda awoodaha ugu waaweyn iyo guulaha ugu waaweyn waxay ku gaareen waa dadka shacabka ahi waa dad aaminsan qadiyadan waa dad ku dhimanaya qadiyadan hadii maanta ito oo madaxweyne Ciro yiraahdo Soomaali baan la midoobaynaayo dawladda ku darsanaynayo la shaqeysanaynaa warabbul kacba madaxtooyada loogu daadanaya waa la soo qabanaya madaxtooyada ayaa loogu daadanaya dadka marka waxa la fiiriyaa awoodda haddaad maqasho dawladda awoodeedu waa dadka dawladda awoodeedu waa dadka dawladnimada lagu sheegayo waa dadka shacabka waxa ay aaminsan yihiin ammaanka waxa ka shaqeeya waa dadka shacabka siyaasiyiintu waxay ka baqaan oo ka gabadaan waa dadka shacabka dalka waxa ilaaliya waa dadka shacabka wixii wax qasaya wax farta ku fiiq waa dadka shacabka waxa la fiiriyaa marka dawladnimada awoodda dawladnimadu waa dadka marka hadaa u fiirisay dadkan Somaliland takan qadiyadan sida ay ku yihiin hadaa qiimaysid waxaad ogaanaysaa siyaasiyiin inuu wax ka qaadaynin waxa kan la yiraahdo ii sheeg xoogna inaan wax looga qaadaynin sababta dadka waxaan way aaminsan yihiin dadkan waa aaminsan yihiin dalkan waxa halkaas soo gaarsiiyay qadiyadan waxa halkaas soo gaarsiiyay nimankan waxa loo leeliijin yahay wax kala ma aha dadkan waa tashadeen waxay u tashadeen nimanyahow inay Soomaali ka go'aan inay Soomaali ka go'amayaan Soomaaliya ka go'aan
dadka qaar waa moodaya Soomaali inay Soomaali iyagaaba Soomaali ka go'aymayaan laakiin inay Soomaaliya ka go'aan oo dal kala noqdaan dadka aaminsan anigu waxaan aaminsanayaa siyaasiyiinta Somaliland waxaa ka sii xag jira waxa weeye waa dadka shacabka weeye qof siyaasiya oo dowladdaas xil u haya hadduu xataa beer laxawsi muujiyo ama inuu soo dacay xataa muujiyo kuma dhaco wuu baqaya xataa qalbiya hadduu aaminsan yahay cid ku dhiiran ka dhamale siyaasi ku dhiiran kara xataa inuu xoogaa hadal maaragtay beer jilicsan ama hadal maaragtay dabac ku jiro inuu ku hadlo xataa kuma dhiiran kara waa wada baqayaan shacabka ka baqayaan marka aad baan u jeclaan lahaa shacabkan degan koonfurta gaar ahaan goboladan shabeellooyinka iyo gobolka Banaadir iyo Hiiraan goboladan dadka shacabka ah degan aad baan u jeclaan lahaa in ay qadiyadaha noocaas oo kala yeelan lahaayeen sababtoo ah hadday yeelan lahaayeen 300 wiil ama 400 wiil oo cali dheer hortaagan yahay madaxu u dooban yahay 20 sano dhulkaas kuma dhumaaleysteen oo dadka shacabka Soomaaliyeed ma gumaadeen oo dadka ma qarxiyeen haddii dadka shacabka yihiin ay tihiin dad ay ka go'an tahay inay iyagu dalkooda u tashadaan inay iyagu wax maamushaan inay iyagu dowladooda macnaha waxa weeye haddii ay iyagu dadka shacabka ay yihiin dad soo jeeda oo waxa dalkooda ka dhacaya la socda oo wax diidi kara waxna yeeli kara haday yihiin cid soo dhexgali ka dhaama jirto marka kay xaasidnimo ka ahayd dow dadkaas waa tageen kii ay lix jecla ka ahaydow qalbiga Allah kuu qaboojiyo dadkaasi waa ku daayeen waxaan kaloo ku darahayaa siyaasadda Muqdisho taala haddii dadkaasi ay ahaan lahaayeen waqtiyo badan baa la soo maraa oo jaanisyo la heli karay oo dadkan dowladnimada lagu soo jiidan karay laakiin waa la lumiyay wixii ayaan hore tagay wuxuu ahaa wasiirkii wasaaradaha Soomaaliya ugu fiicnaa ee ugu shaqada fiicnaa ee ugu daacadsanaa ee ugu xalaalsanaa Cabdiraxmaan Beyli hargeysa iska tagay wuxuu yiri niyo meeshan meel nin weyn oo qadiyadu iska soo taagnaan kara ma maanta wasiirtu baa ka tagay